xogayaha guud ee jaamacadda carabta Axmed Abuulqayd ayaa waxa uu sheegay in Turkiga, Iiraan iyo Israa'iil ay leeyihiin dana ay doonayaan inay ka gaaraan gobolka Carabta. Abuulqayd waxa uu sharaxaad dheer ka bixiyay aragtidiisa ku saabsan dhaqanka quwadaha gobolka ee aan Carabtu ahayn Turkiga, Iiraan iyo Israa'iil in xoogagani ay leeyihiin himilooyin iyo weliba dano ay doonayaan inay ka gaaraan gobolka Carabta. 10kii sano la soo dhaafayna waxaan aragnay nooc ka mid ah ka fiirsasho la'aanta siyaasadeed ee dhinaca Turkiga, Iiraan, taasi oo muujinaysa in ay leeyihiin rabitaan ah inay ku tallaabsadaan waxa ay u maleynayaan inay yihiin guulahooda sababo la xiriira qalalaasaha ay wadamadaasi gobolka qaarkood galeen ilaa iyo sanadii 2011. Abuulqayd waxa uu intaas ku daray qaarkood waxay aaminsan yihiin in jawaabtayada Carabta ah iyo weliba faragelinta iyo siyaasadaha Iiraan iyo Turkiga ay la macno tahay sidii aan u aqbalno amaba aan u aqbalno dhaqanka Israa'iil. tanina xaqiiqdii waa qalad. Xiriirka Carabta ee Israa'iil si kasta oo ay u arkaan horumarkooda ay heerarka kala duwan qaarkood waxa uu sii joogi doonaa aragtiyada kana fog aqbalidda buuxda ilaa iyo inta uu qabsanayo. Israa'iil waxa ay ku sii socotaa dhulka Falastiin iyo Carabta ayuu tilmaamay. Waxa uu sharaxay waxaa jira mowqif cad oo Carab ah oo ku saabsan cambaareynta iyo weliba diidmada dhammaan noocyada faragelinta shisheeye ee arrimaha Liibiya, taasi oo ka dhigtay Liibiya goob ay ka socdaan faragelinta military ee dal xubin ka ah jaamacadda Carabta. Abuulqayd oo ka hadlaya dhibaatada Syria iyo faragelinta military tooska ah iyo weliba mid aan tooska ahayn ee dhinacyo badan waxa uu yiri faragelintani waxa ay gacan ka geysatay si muruginta dhibaatadan iyo weliba si dheereenta maxaa yeelay dhammaan dhinacyada dhexgalaya waxa ay leeyihiin dano ay doonayaan in ay ku guuleystaan. qaarna waxa ay u maleynayaan inay maalgashi ay ku sameeyeen khilaafkan sanado badan, mana doonayaan inay ka baxaan faa'iido la'aan iyo weliba ujeedooyinka halista ah ee qaar ka mid ah dhinacyadan ee joogitaanka muddada dheer ee dhabaha u xaaraya tallaabooyinka iyo weliba siyaasadaha looga gol leeyahay isbeddelka tirada dadka ee gobolka Syria qaarkood. tanina waa mid aysan aqbali karin Carabta. diidmadanna waxaa lagu muujiyay go'aano dhowr ah oo ay soo saareen golaha wasiirada ee jaamacadda Carabta ayuu tilmaamay xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abuulqayd.